sheekh saail aad uga fog arintan wuxuu yiri magacaygu waa Maxamed Amiin waxaan joogaa Mareykanka waxaan isla joognaa aabahay laba eedooyinkeeya iyo hooyaday aabahay wuxuu la safan yahay labada eedooyinkeeya oo midna ay ka weyn tahay midna ay ka yar tahay waxayna col yihiin hooyaday markasta waxay ku qalqaaliyaan inuu guursado xaas kasta xaas kale annagana na dayaco annagina waa na dayaca aabaha maxaad u sheegaysaa annagase maxaa noo sheegaysaa alxamdulilah horta Soomaalidu way luqada badan tahay eedadu aabba walaalihii way kuwa uu qaba ma aha kale sida halka muuqata eedadu waa eedda la dhalatay aabba ila tii u dhaxday waa midaan leeyahay la guursado maaha mid samid guurku waa wax banaan ku dhiirigelintiisuna dambi maaha caruurtan iyo wiilkan weydiinaya ama gabadhan iyo wiilkan weydiinayana dambi kamaynan gelin adeeradii eedooyinkii ahalkii qaraabadii aabahood hadday guur kale ku dhiirigeliyaan dambi lagama gelin wixii dhashana isaga walaalihii oo soo kordhay oo bari ay iskaalmaysanayaan ama inuu intifaacsado u baxaasada laga yaabo way imisa u baxsato intifaacsatay walaalihii oo hooyo la wadaagin imisa u baxsatay Cabdirasaaq marka isagu hooyadu haday dhibsato wax masayra yimaado isagu inuu la masayra maaha laakiin waxaan meesha ku jirin in lagu dhiirigeliyo reerkii iyo ilmihii hore inuu dayaco taasi waa dambi isna uma banaana walaalihii iyo ahalkii iyo muslimtoona inay ku dhiirigeliyaan ahalkaagi iyo ilmahaagi dayacna ma banaana nabiga waxa ka soo naxariis salaam inuu yiri kafaa bil irmi ithmi kafaa bil mar'i ithman an yudayi'a man yaqut qofka dambi waxa ugu filan inuu dayaco dadkii xilka mas'uuliyadda noloshooda iyo quntadooda iyo quudkooda saara inuu dayaco wax kale oo dambi haduusan sameyn kaas dambi naar lagu galo ugu filan kabaa'irta waaweyn bay kamid tahay kabaa'irta waaweyn bay kamid tahay qofku dadkii wax ku lahaa isagoo awooda inuu dayaco ku dhiirigelintuna waa kabaa'ir dambi kabiiro oo waaweyn qofkii ku dhiirigeliyay isna dambi kabiiro oo waaweyn ku dhacay saas darteed eedooyinku hadday ku dhiirigeliyaan reerkii iyo ilmihii hore xuquuqda ku lahaa dayac laba dambi bay galeen kow inuu reerkii iyo dadkii dayaco ay ku dhiirigeliyeen waa dambi laba qaraabo goysnimada raximka gabadha dumaashidood ahayd iyo ilmuhu ninku dhalay eedada u ahaayeen waa raxim in la xumeeyo inay ku dhiirigeliyaan oo la dulmiyana waa qatiicatu raxim labaad way hadday dhacdo arintaasi kabaa'ir waaweyn oo fara badan bay ku jiraan ninku hadduu arintaa yeelana dambi iyo kabiiru ka yeelay maxaadna dhihi lahayd dee waxaan idin dhihi lahaa aabbihiinna waxaan dhihi lahaa dee reer kalood guursatay inay ilmo kuu dhalay horta ilaahay baa og inay tan kaaga fiicnaana alla og hadday ilmo kuu dhasho ilmaha ku anfici doona alla og dhacdooyin badanoo waxaan anigu garanayaa Cabdirasaaq waadna inaad garanaysaan u malaynayaa rag badan oo ay anfaceen ilmihii ay dayaceen kuway koolkoolin jireen meel cidla kaga tageen anigu waxaan hal tusaale aan bixiyo waxaan garanayaa nin uu dhintay Allah u naxariisto carruur buu lahaa xaas kale isku xumaadeen wiil bay u haysay caradu islaantii uu qabay buu wiilkii ku tuntay oo dilay meyd ahaan buu intuu lugta u jiido god ku tuuray annagoo geed fadhino intuu noo yiri meydka soo aasa wiilkii oo nooloo neefsanayo quraanjo afku kaga gurmaysaan u tagnay waa soo qaadnay biyaan ku rushaynay wiilkii wuu fiicnaaday ninkii oo waa yeelay oo dhulka ka haya wiilkii cunadiisa cabitaankiisa caafimaadkiisa dhaqaalayntiisa baa ilaahay na tusay kuwii kalena ay ka kala tageen tusaalayagu 1 iyo 2 iyo 3 maaha waxaa laga yaabaa kuwan aad dayacayso in ilaahayba kugu anfaco saas darteed ilmahaagii kuma kala xigaan guurka labaad waa bannaan yahay laakiin kana ha dayacin ilmo labaad ilaahay hadduu ku siiyo iyagaaba laga yaabaa inay is anfacaan oo aduguba intifaacsanin ood kaba dhimato inay kuwii hore dayac rabta ku anfacaan baa dhici karta inay kuwan ku anfacaan inaad ka shaqeyso waxaan aad dhashay waa walaale say iyaga walaalo ku noqon lahaayeen aad isugu soo jiidi lahayd labadaada xaas
ee ilmahaaga dhalay iyagaa iska xiga kuwan kula dhashay oo kuwanay mid walba midna way dhashay midna booskii hooyo dhashay u joogtaa iyaga walaaltinimadooda inuu ka shaqeeyaa laga doonaya ilmahana waxaan dhihi lahaa aabbihiin iyo eedooyinkiin ilaahay u barya wixii idinka galeen ay khaladana iska cafiya ajir baad aakhare kaga helaysaan iyagana ilaahay u barya aabbihiin iyo eedooyinkiinba inuu soo hanuuniyo waxay xumo ay qabaanna ilaahay qalbigooda ka saaro